war-saxaafadeedkan ka soo baxay midowga musharixiinta ayaa lagu yiri midowga musharixiintu waxa uu soo dhaweynayaa go'aankii dib uga noqoshada muddo kororsiga looguna laabtay heshiiskii 17 September. Goluhu waxa uu u mahadcelinayaa shacabka iyo ciidanka difaacay dastuurka kana dhiidhiyay go'aankii sharci darrada ah ee muddo kororsiga inuu dhaqan galo. Goluhu waxa uu sidoo kale soo dhaweynayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu si buuxda ula wareegay maamulka doorashooyinka qaranka iyo amniga dalka maadaama ay ciidamada qaranku ku kala qaybsameen diidmada iyo difaaca muddo kororsiga sharci darrada ah. Goluhu waxa uu soo jeedinayaa si loo mideeyo ciidanka in xukuumaddu ay magacowdo hoggaan mideyn kara ciidanka abuuri karana kalsooni dhexdooda ah. Goluhu waxa uu ka digayaa in ciidanka diiday muddo kordhinta laga arguto xuquuqdoodana la duudsiyo ama ay maamulka amniga faraha la soo galaan si dadban iyo si muuqataba. Madaxweynihii hore iyo xulafadiisa Goluhu waxa uu ku boorinayaa ra'iisul wasaare Roble inuu qaado tilaabooyin muujinaya in amniga dalka uu madax bannaan yahay si uu u kasbado kalsoonida ciidanka shacabka siyaasiyiinta iyo beesha caalamka. Goluhu waxa uu diyaar u yahay inuu si buuxda uga shaqeeyo ra'iisul wasaaraha qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhacda waqtiga ugu dhow. Waxaana uu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka wada tashiga si uu miiska u soo saaro tabashooyinka ku aadan fulinta heshiiska 17 September. Goluhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in wixii ka dambeeyay 1 bisha shanaad 2021 uu mas'uuliyadda doorashooyinka iyo amniga dalka kula xisaabtamayo ra'iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisa. Goluhu waxa uu ku boorinayaa ra'iisul wasaare Roble inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha doorashooyinka uusan marnaba la jirin dhinac ka mid ah dhinacyada tartamaya. Goluhu waxa uu mahadcelinayaa dhammaan dowlad goboleedyada oo diiday muddo kororsiga una dhabar adeegay dib uga noqoshada heshiiskii 17 September. Waxa kale oo bogaadin mudan beesha caalamka oo aan ka daalin taageerada shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay golaha midowga musharixiinta. Shamis Cabdiraxmaan Mustaqbal. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.